iyaguna say doonayaan bay kolba ka yeelaan kolba say doonayaan kolba dhankay rabaan bay u rogayaan oo adiga arkaya maanta arrinkaa faan cid ka hadlayso reer Jabuuti ma jirto marka laga reebo gabadhii isaga xaaskiisa ahayd oo aad iyo aad aan ugu mahad celinayo hawsha ay gashay hawl adag bay gashay iyadaana soo saartay cadaalad darrada Jabuuti ku jira ka jirtayda soo saartay marka asaas dadka ugu tala galeen dadkana waa mayitiin gabay baa wuxuu oranayaa naagaha dumarka dhankii loo rogiyo dhinacba diidayni bidigaashaha lagu arkiyo dhiiga caadaday marka dadkani wax alla waxay diidayaan ma jirto Jabuuti jooga wax alla waxay diidayaan reerkaas haysta reerkaas gacantooda ku jiraan si ay ugu taliyaan bay ahaanayaan weel walbana iyaga haysta reerkan cafarta la yiraahdo dalka way la degan yihiin wayna la leeyihiin inta farabadan iyaga dhulkan iska leh laakiin looma ogolaba iyaga bal haddii ciise loo diidaan cusbayaanka wax laga siin waayo cafarta xataa meel quro oo lagu aaminayaa ma jirto waa iyagu wax alla waxay yihiin baa iska baranka danaakiradu laa yusminu walaa yaqnu majuu haba la iska saaray marka nalo reerka meeshaas ay dadku ku nool yihiin dhibaataduna waa reerkan waxa keenay meesha ka yimaadeen carruurta masas baa cuna geeda iyo dadka reer Jabuuti ma dadka muslimiin umada u galay reer Jabuuti ma waa dad ka yimiday gubanka Soomaaliland bay ka yimaadeen wareerkan anu wahay weeyaan Jabuuti soo galeen halkaas ay dadkii ku gumeeyeen dadkii wadanka ay ugu tageen waa kuwa gumeeyay dalkiisan dadkii gumbay ku nooliyeen iyaga waxay gumeeyaan iyo kuwa iyaga u shaqeeyo la dhahaa house niggers oo waxa iyagu sameeyaan u sameeyay oo sidoo u labisto sidoo wax u dilo sidoo wax xala oo sidoo wax u dhac dalkana maanta haday ka tagaan waxaan xaarahayn kama tagayaano xigmad ka tagi maayaan dhaqaalihii dalkay ka tagayaan urursadeen ayaa haystaan marka nin dhaqaale lacag ka tagay waa nin xaar ka tagay xaar buu ka tagay idan lacagta waxba lagu cunaa waa nin xaar ka tagay laakiin xigmad kale iyo qarannimada dawladnimo kama ay tagin waxay ka tageen adoons inay Soomaalidii gumeeyaan dadkii ay kala dhasheen waliba reerka Ciise la yiraahdo la gumeeyo una maanta Ciise hadli karin Ciise ana imika la tusay waa dawlatus Ciise waxaan loo sameeyay maanta Ciise maalin uu ka itaal xun yahay ma jirto galbeed iyo gubanba uu dulmayaayo reerka qore Jabuuti qabsaday ayaa gumeeyay oo dulmay meesha uu ka yimaadeen dhaqtar male la male iskuul la male wax kale oo leedahay ma jirto uma qodayaan ceel xataa uma sameeyaan carruurtooda geedii hoos dhigantay waa halkaan uu ka yimid anigan hadlay reerkaas ahay been kama sheegay iskuul la male meel ay wax ku bartaan ma jiray geedii wax ku hoos bartaano geedahan abeesada cuntiye maska iyo ugu yimaado mar walba qaar buu ku cunay halka ku dhintay marka anagu dhibaatada waan la qabnaa sida idinku aatiin u baaqnahay sida u dulmantiin baan u dulmanahay waa criminal gangs waa koox mujrimiina waxa dalka qabsaday ee umada sidan u galaya ee dalka sidan u dhibay ee umada calankii sida u dhibay ee ciidii sida u dhibay ee wax iyagu u leeyihiin ka dhigay dalkii weeyaan property iyagu ay leeyihiin badalkii iyo dadkii iyo shicibkii iyo calankii iyo ciidii wax iyagu leeyihiin bay ka dhigeen qofkii yiraahda san ma dhici karto amba waan kula leenahayna dhibaatadaas gaadhiso arrinka faad baa ku dhacay marka faad anu waxaan leeyahay waqti matter of time way waana soo bixi dalkan adigana madaxweyne ka noqon doona samirana waxaan leeyahay dulqaad baa laga rabaa dulqaad samee waxaan waa qadar ilaahay baa ummadda reerkan u soo diray 45 sanadood bay joogaan adigu waad ku dhalatay iyagoo xukuma ilmahaaguna uu ku dhashay iyagoo xukuma marka waxay dadku u haystaanba wax loo soo diro wax iyo samaawi ay dadku u haystaan oo waxay leeyihiin ilaahu kuwa waxsi annagana waxana siiyaan sharafta iyo karaamada ay kuwa la doonayaan iyagu naftooda uma quurayaan waayo waxay dhasheen oo ay barbaareen oo iskuul galeen reerkana oo iyaga xukuma ka saray marka waxana de wax si shaqeynaya ma dunida kama si shaqeyn doono shicibka reer Jabuuti meel kastoo dunida joogtaana waan soo salaamaya waxaan rabaa codkaygaasi inuu gaadho faad haddii la yiraahdo waxaan ku soo gabagabeynayaa slogankiisa beni maratayo xaqi muuqayey geedu mudhiyo waa wada magool
muuqii dadkuna waa midaba kale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka reer Djibouti meel kastoo dunida joogtaan waan soo salaamaya. waxaan ka xumahay aad iyo aad uga xumahay xukunkii xaaraanta ahaa ee baadilka ahaa ee qabiileysnayd qabyaaladu ka muuqatay ee lagu xidhay Fuad oo cadaalad doonayay. cadaalad ayuu kaliya ayuu rabay. cadaalad baan rabaa ayaa Fuad arrinka u geystay dhibaatada inta lagu geysatay oo noloshiisii baabiisay oo qofka xaakim qofka la xukumaay wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay qofka محبوسكي حق بولي حقي سيوكواي السلام عليكم سمتر أحمد عثمان. C'est très important et je sais pourquoi je l'ai mis là, pourquoi je l'ai fait écouter, parce que ce gars-là, c'est un danger. marka hore waad salaamantiin walaalayaal. سلام سنة كافية يدمانتي نودما يسمتر هون جوتي كلوان السلامي سميرة محانو صدقايا نكن أمرا حسن محانو صدقايا أو شلي تولينا إنو عمر قيلي إيو انتو وجي كالعيارايا وانين مدركتي رياك قبيل كدلك جوتي كتاليا يوكادش وامدو هخلدمنا دباتدا مماسنو دن ماها مماسن بلبلة على السبيح كو جاجونايا سوماليلاند وابدنا إثيوبيا وابدنا لكن مماسن جيبوتي كو جاجونايا أو عناهن هيسن وابغلال marka khaldamina ninkan ciyaartu ciyaarayo Amar Xasan ciyaartu ciyaarayo waa ciyaarta la rabo oo talisku rabo taliska raba meeshan Djibouti mid isla ogaada reer Djiboutiyo si fiican dhageysta abtigay Fuad latuna Fuad Yusuf Ali inta soo jarban ka hadlay inta soo jarban joogay hadday noqoto dhalinyarta maaragtay compatriot mouvement patriot la oranayay oo kamid ahaa maaragtay in ninka imaka maaragtay hogaamiye maaragtay beeshkaas in magaciisi baa iga baxay iyo waxaan garanayaa maaragtay wiilkii kale abtigay ahaa ina Saciid Laurent. okay goobjoog baan ka ahaa maalintii Fuad la qabtay goobjoog bana oo live baan ku jiray oo yakan la hadlay waxaan ku hadlay iyo waxaan isneena wada ogtiin kadib waxaan soo qaatay Fuad sidii loo qabtay iyo daminka la geliyay iyo ragga uu la hadlayay telefoonka Fuad latuna Fuad Yusuf Ali ragga uu la hadlayay oo meesha ku jiray ayay wiilkaas maaragtay in magaciisa markay iga baxsanay in eegada bursi iyo magaciisi Daahir Axmed Faarax daaf iyo ka dhacami iyo in buuhay maaragtay waxa la ramoyn maaragtay ina maaragtay in wiilka cafraade marka xabsiga gabood ku jira ee la leeyahay gabood buu ku jiraa xabsigu ku jira intooda bay hayeen saddex telefoon bay kula hadlayeen waa Fahmi Cumar oo mouvement patriotka Daahir Axmed Faarax labo iyo Maxamed Kadhacami iyo nin kale jira isaguna oo isaguna madaragtay in fruit baan ku jiraa oo Kadhacami baan ku jiraa
magaciisi baa iga maqan isaguna meeshaan soo dhigay oo intaasoo jeer baan ka hadlay laakiin ujeeddada maanta waxa weeyaan fuaad xukunkiisa iska daaya xukun maaha fuaad xagga ilaahay buu ka nool yahay taa horta madaxa geliya reer jabuutiyo fuaad barkhad barkhad cudum weye waa kaa ison kat afar bay hayeen daahir axmed faarax oo telefoon kula hadlayay barkhad oo la joogay maaragtay fuaad maxamed kadhacami iyo mid kaloo isaguna maaragtay oo isaguna maaragtay telefoonka kula hadlayay oo yiri fruit baan oo dagaalada fruitkan ku jiraayo oo ciisa yaaga maqan iisoo sheega magaca ninkii maaragtay fruitka raacayee lahaa jabhadda fruitkan ku jiraayo soo baxay beljig jooga ii sheega magaciisii baaga maqan intaabaa fuaad xadhigiisa iyo laynkiisa waxbay ka og yihiin marka horta mid anigu mar horena waan u sheegay reer jabuuti iminkana waan ugu celinayaa mahdi merci burhan voilà mahdi il fait partie du groupe hore baan u sheegay on il fuaad hadduu nool yahay mahdi ladiye exact fuaad hadduu nool yahay wuxuu ku nool yahay waa amar ilaahay waa amar ilaahay laakiin fuaad waxay ugu tala galeen inuu sidii maxamed jabha uu meesha ku dhinto taas laba cali isma weydiinayso pourquoi maxaa uu inuu cumar geelle iyo nabad sugidda jabuuti xasan madoobe iyo raggaasoo dhan maxay u doonayaan fuaad inuu meesha ku dhinto pourquoi fuaad reerkiisaa loo diray fuaad kaninkaa loo diray in furloohan ciyaarta ciyaarayee ilyaas dawaal uu ku jiro pourquoi lacagtiisii dhimashadiisa dabadeed lacagtii lagu bixin lahaa oo samiro la siin lahaa iyo reerka furlaba la siin lahaa waxaa gacanta ku haya ilyaas dawaalaa gacanta ku haya inaan been isku sheegin riwaayadda laga baxo moogta faaritee maaragtay lelarm de crocodile oo inta maaragtay sida crocodileka fuaado soo bax fuaado riwaayadda joojiya hypocrite baa tihin gudaafad baa tihin qurun baa tihin fuaad xagga ismaaciil cumar geelle iyo taliska iyo khadra il est considéré comme un homme mort nin dhintay yaa la xisaabinayaa waaniga nii sheegayni leh lacagtii dhiiggii fuaad waxaa gacanta ku haya maaragtay ilyaas dawaale xabashigaas qurunka ee yaasiin yaabana iibsaday ilaahu naxariistee yaa gacanta ku haya marka riwaayadda in iska dayno anigu waan garanayaa waxaan samaynayo anigu waan garanayaa oo mana baanin in halkan aan ka sheego hadduu ilaahay la qabto hadduu ilaahay garab galo waana mid fuaadna waan u sheegayaa ilaahay cimrigiisa iyo caafimaadkiisa hayo intaa yaree maka hadhay insha allah fuaad oo arki doona abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya ninkii soo diray isagoo xabsi ku jira wallah ilaahay waxba kumaha intaa yar baa hadhay abiy axmed oo la qabto isagoo la dilo iyo isagoo baxsada laakiin maxay u badan tahay isagoo la qabto yay dan ugu jirtaa waana ta la qabanayo u badan tahay in la qabanayo oo xabsiga la gelinayo waana ballan markaas fuaad markaas isagoo soo baxay oo xora oo baasboorkiisii diblomaatiga haysta oo ka degay addisaba oo soo eegaya indhihiisa ku arkaya magaciisi abiy axmed anigayga nila hadlaya
والله وبالله وطلع وقريت تاريخ هذا إسماعيل عمر قال مركيو أو بلن إلى دكتي إن مقدش الجوي إن سياد برلش الجوي أو سياد بري المال تجيبوت تبع الله وررايا أن ديدي أن سفيرك الله هذلي ورنيو وضاد ضاعته جوتي أجعشهاي والدجال أنا دربين نيو بابور ديارة واحد وانتقاله أقول أنا سكوني مع إنه إثيوبيا وين أمينستي وكصبح يا أوغلادي إن الدجال كوقادان جيبوتي يا أوغلادي وحكم إذا دني كان مرتي لو شيء قال لي مرتي وما درت هالياجة جيبوتي أبتغيه عمر خيري عمر علمي خيري إن الدم اسمه بي يعني يموجي يو مقعيسي أبرار يا علي داود شعب داود ولالك إلى على السيف أنت ذا حمر بان ولا جوني مقدش الجوني مركين تاس عمر علمي خيري دم اسمه بي يا مقعيسي يشرب محو أبرار يموجي إلى على السيف iyo maaragtay abraar iyo cali daawud waxay ogolaadeen inay lacag ka qaataan maxamed siyaad bare oo boorama yimaadaan boorama ka soo baxaan ay Djibouti ay halkaas ay dagaal kaga bilaabaan wayna sameeyeen tuurtuur iyo rasaas yar oo beenbeena way dhacday laakiin anfartii lagu tala galay ee boorama joogtay ee Afar Liberation Front way diideen dagaashii bare anaku Djibouti ma soconaku أنا كنت أنا من قصة على مريم يعني صعنا أنكو عفرت على مريم وحنص عنا من قصة على مريم يعني كجيبوتي وحن شغال معه هذا كو عادي أنا كمان كون صبح درنا دماني بدي درنا دماني كان بدي وحنط جمارتي أنا كو حيلا سعودي ونحرسته إن أحمد سواحلي فؤاد أو فيس بريزانجا أوروكيا فؤاد بقى سعودي فيس بريزانجا تلفون ما ندري قصيرك وحنا وريه دري دبان جوجا وحن دقينا إمارة هوتيل كاس هاي ما دقي بها مع عبد الله الدبركالي بها نيو بريتو لي كالي الصبح مدرتي إسماعيل عمر قيلا كدونا ينو كل هذا لي نيو اللي بحبها تي فريد باتي كالي سفارة صبحي طبعا كي سفارة عن تجي قصيرة جيبوتي درنا بكتالة نكي بانو تجي وان لا هذا لي وأنا سرنا لباح وكمان نكي على سعوا قدومي كحين كمان أوروكيا هنا فؤاد أحمد سواحلي جوج بري إنه عمر قلان كودي بيان تلفون كو قبتي إسماعيل بلاد إسماعيل السلام عليكم ما في عند آخرها نيو وحي هور جوجو سوق لي حالي طولي يا إن سلطان عبد الله الدبركالة سوق لي هو كانوا يقرب جوجو مكل جوجو ها إيدي إسماعيل عمر قال السلام عليكم دبركالي ونيو اللي باح هاي فريد باتاي بيكوتو بيانفونو أدير دوا إن أدولا رابس دي هوتيل كاجس كجو ما أنت وحنا سنين بانهاي سنين بيه هدولا را خميس تدورنما يا صبحي on ديارة سوق قادنا يا on كوجي من يدير دوا هالكابن كولا هذا لنا وكشيء سنة كدبنا ما رتي وحنا سقاف قرنو ياد مركز الجيبوتي سوق قلي وإسماعيل عمر قال أفكي سيقلي ولا هذا لايا كدبت تلفونك وحنا ندير قصيركي اوكي بانيري قصيركي هي اوكي شيف بس ده انا مارتي سو دوينايا وان كسوينا خميس دولار اوكي تلفون كولي وني هو كاس اسماعيل عمر قالوا كفر حسين انا تمدي انا هذا الكاغي كدبيسي لباح باطاي اوكي اوتيل كاغي اسك جوج خرج دad wax u baanta waan ku siinayna ma iman alxamdulillah waxa waan haystaa in ilaantu imanayo bas hotelkaaga iska joog in telefoonkaagina waad haystaa aan iska warhayno hotelka waan ku noqday kadib hotelkii message baa ii soo baxay waxa laga yiri General Aidid baa ku doonaya inuu kula hadlo kadib General Aidid baan u tagay General Aidid baan ki maartay 2 saacadood wala sheekaysanaynay kadib markii dambe in waxa la ii sheegay oo laga yiri nin kale isaguna ku doonayno ku arko Abdulrahman Tour oo markaa ahaa gudoomiyaha maartay SNM-ta isagana maartay waxaan ugu tagay hotelkiisii hotelka oo Medla loonay oo Medla hotel in tukalera ya gacaniriisa
chief of cabinetkiisa tuka maaragtay ii geliyey halkaas marka cabdiraxmaan tuur ilaahay naxariistay maaragtay isagana 2 saacadood baan wada sheekaysanaynay oon shaaha ku cabaynay kadib markaan ka soo baxay waxaan maaragtay aan isaaragnay magaciisii ii sheegay maaragtay xuseen ismaaciil oo abtuwa ismaaciil cumar geelle oo xusbiga isapa raasgeeska ah gudoomiyaha gobolka soomaalida xusbiga maamulaya isapa la oranaya ee deerga ka tirsanaa isagu markaa gudoomiyuhu ka ahaa gobolka soomaalida xusbigaas oo president du parti waa xuseen ismaaciil waa raasgeesku ah waana ninka imika waxaa haysta baasboor diblomaatiga guri baa la siiyo looga yimay jabuuti mishaar wuxuu qaataa ilaa 600 oo kun oo faranka jabuutiya intii ugu dambaysay dhowr sanadood ka hor jabuuti uu joogay inuu ka dhoofay maraykan tagay kanada tagay magaday aduu ninkaa isagana saacadii xoogaa baan wala sheekaysanay kadib waxaan u tagay ilaahay naxariistay maaragtay maxamuud jarmal oo isagu markaa barasaabka ama gudoomiyaha maaragtay dira dhalay maxamuud jarmal yani isagana wala sheekaysanay okay maxaa dhacay marka maxaan arrintan iiga sheekaynayaa waxaa dhacay subax dambe waxaan jecelahay isniintii baan ka soo baxay talaadadii arbacadii subaxnimo mercredi matin à 6h du matin waxaa yimiday 10 nin oo caskar oo qori wala seeta iyo nin maaragtay colonela yay baabkii u garaacay suldaan cabdalla dabarkaale waxaa ku rabo maaragtay adiga waan furay suldaan cabdalla dabarkaale soo adiga ma ahaa okay baasaboorkaagana sii baasaboorka u dhiibay waa baasaboor faransiis oo ma faransiis baa ka ahaa okay aw ninkii kale kula socday waa ka qolkan kaluu deganya waa lagu garaacay adigana baasaboorkaaga noo dhiib waa jabuuti waa fuwaad ina sawaaxili ilaahu naxariistay bas colonelkii maaragtay xakumay securityga armiga ee somali state oo dhan from jigjiga qabridahar meel kaste ninkii xakumay harar buu joogaa waxaa la yidhaha colonel ayaane waa nin amxaaraa bal taariikhda arka colonel ayaane reer etoobiya o dhan ba way wala garanayaan intay dhegaysanaysa daawanaysa bas colonel ayaana lagu geenaa la yidhi waa la naqaaday bannaankii yaa jooga hoteelka hortiisii 3-4 baabuur oo miduqori ku jira yaa na galbinaya saani baa lanoo qaaday ilaa iyo harar alaabtiina iska taalaa la yidhi maantada caawa galabta waad soo noqonaysiin in lagula sheekaysto baa la doonaya kadibna waad iska soo noqonaysiin alaabta hoteelka iska taala alaabtaydii waxaygii o dhan sidii baan kaga tagay okay toos c'était waxaan jecelahay waxay ahayd in juin aduu à peu près juin 90 yaan jecelahay juin 90 1990 okay waa lay qaaday waxaa lanoo geeyay colonelku shir buu ku jiraa baa layidhi sugaa la yidhi aduu ilaa 2dii duurnimo 3dii markay gaadhay yaa la ninkay shirkiibu maaragtay ku raagay inamariya waan qaadaynaa hoteelkaan geenaynaa galabtaad wala ballamaysiin waad soo qadaynaysiin saaninta laga qaaday non tu parles de l'indépendance je te parle de 1990 je te parle de juin 90 Kafia waa directement anigu hotel in la geenayna moodi inaan soo qadaynaan moodayni saani baa laga qaaday harar marka laga baxaayo dariiqa harar ee loo socdo jigjiga xagga maaragtay xagga duruadka waxaa jira xero militaria oo la yidhaha maklawi oo ciidanka militariga halkaa ay godod ka qoteen maaragtay maxaabiista lagu guro maxaabiista siyaasiyiinta halkii baa laydeyey godkii baa laygu xidhay godkii yaa laygu xidhay aniga iyo fuwaad hadal laguma daalinayo waa nin soo koobaya dhowr bilood kadib waxaa dalkii ka dhacay isbeddel aniga yaa xidhay ismaaciil cumar geelaa godkay geliyey oo la hadlay wasiirka arrimaha gudaha ay saaxiibaayeen
Tesfaye Welde Selassie, le ministre de l'Intérieur au Mengistu Haile Mariam yuu la hadlay ay saaxiibiyeen ninkaa ii qabo xabsiga ii geeya ninkaas siyaad baraa soo diray $200,000 buu siiyey inuu maaragtay uu diri dhabe iyo Djibouti uu khalkhal geliyo marka ninkaas waa very dangerous noo qabto waa Ismaaciil Umar Geelihii telefoonka aniga igula hadlayay ay filisteenayay ayaan Muqdisho kala soo hadlay maaragtay safiirkiisii oon u sheegay inaan nabad doonayo iyo siyaasadaan isku hayno iyo aniga godkay gelinayo waa in Umar Geelihii waa kaas waa khaayinkaas maxaa dhacay aniga waa lay qabtooda aniga xabsiga ku jira 3 bilood kadibna maaragtay maxkamadda lay keenay maxkamadda waxa loo geeyay Shangooda 4 nin oo midowgada bursi yahay 3 ay ciise yihiin iyo mid kale oo isaguna aan jecelahay qabiil kale oo ahaa 4 nin baa lay keenay maxkamadda oo leeri dabarkaale maaragtay siyaad baraa soo diray oo aniga igu been furaya taa Fuad lagu sameeyay Fuad arrintan socdo waa Fuad muugta Fuad taa maanta lagu sameeyay ee been abuurka la keenay maxkamadda aniga la igu sameeyay maxkamadda Harar oo la igu xukumay dil bala eegal ka arrintu gaarayso dil baa la igu xukumay Shango oo habeen madow nin uu dhinto Ilaahay naxariistay reerkan ka soo dhashay abtaaladey ba hayeen oo furlaba Ilaahay naxariistay uu dhintay waan iska saamaxay waxaan leeyahay markay waa qorshaha lagu jiraan kule Ilaahay abtaaladey ba ku jiray oo furlaba abtaaladey oo furlaba waxaad moodaa ressemblance waxaan isku eegnahay Lieutenant Fuad Yusuf Ali oo furlaba iyo anigoo furlaba dirdhabe iyo Harar ay in Umar Geele ay daminka ay dhigeen oo lagu xukumay dil dhowr bilood kadib maxaa dhacay marka amarka Ilaahay markaad Ilaahay maaragtay aaminsan tahay amarka Ilaahay waxa dhacaan ay sheegaya Mengistu Haile Mariam wuu baxsaday waa tamaanta aan sugayno Abiy Ahmed Mengistu Haile Mariam wuu baxsaday Ilaahay baan igu dhaariyay sheer gareeya xajista maaragtay waxaan ku hadlaayo waa taariikhday galaysaa si fiican u dhageystay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Djibouti taariikhday galaysaa si fiican u dhageystay Mengistu Haile Mariam wuu baxsaday raggii dirdhaba ka talinayay iyo raggii Harar ka talinayay oo 5 nina oo ciidankii Ethiopia federaalki kii Jigjiga xukumay kii Harar xukumay kii ciidanka maaragtay Somali State xukumay kii maaragtay bankiga Harar iyo bankiga maaragtay in dirdhaba xukumay iyo ninkii nabad sugidda Colonel Ayane iyo ko baxsanaya oo 4-5 baabuur oo Land Cruiser dahab iyo lacag buux yey ka baxayn halka ay tagba jaale oo u socdeen ilaa iyo maaragtay Hargeysa ilaa iyo Hargeysa u socdeen waa la qabtay baabuuradina waa la soo celiyay oo wiil yaro kabtana yaa qabtay habeenkii iyo ko guuraya sheeko dheer weyn marka niima galay waa la qabtay waa la soo celiyay waxaa la keenay 5 nin oo ninkii maalintii dhowaaniga ay xidhay yiri maaragtay waa lagu dilayaa xabsigaan ku jira aniga laga soo saaray iyo kiiba xabsiga la geliyay McLeod anigana hotelkii Ras Hotel Harar yaa lay dhigay aniga Fuad bal arka taariikhdu halkay marayso arka maxaa kaloo la igu keenay xabsiga mid baa naga iloobay oo xabsiga igula jiray ya markii aan ka soo baxay la keenay Maxamuud Jarmal iyo sheeg muxuu ahaa Hussein Ismail Raasgeyska iyo Maxamuud Jarmal yaa xabsiga la keenay Harar iyo kana la soo xiray macnaato raggii aan arkoo dhan laba ka maqan waa Cabdiraxmaan Tuur oo Hargeysa ka taliya oo Hargeysa galay oo madax ka Janaan Caydiid oo mustaxiil ilaa iyo maaragtay Muqdisho madax ka noqday oo halkaa jooga laakiin intii kale arkay Maxamuud Jarmal
xuseen ismaaciil raasgeyska labadoodii iyo kolonel ayaane xabsigaa laygu keenay anna waa lay soo saaray hotel baa lay dhigay anigii fuad ku-xigeenkaygii taa maxaan uga dan leehay waxaan uga dan leehay ismaaciil cumar geelle aqoonta aan u leeyahay iyo waaye aragnimada iyo experience-ka aan u leeyahay isaga iyo khadra maxamuud odeed qof ila mida ma jiro ilaa iyo kuwa madarta la shaqeeya xasan madoobe sidaan anigu u garanaayo ismaaciil cumar geelle iyo maaragtay khadra wallahi ma xasan madoobe u garanaya wallahi baan ku dhaaranaya xasan madoobe ma garanayo xasan madoobe ninka nabadgudda xukuma sidaan ismaaciil cumar geelle iyo khadra odeed aan u garanayo iyo taliska jabuuti waxay wadaan iyo dowlado kaloo shisheeye waxay wadaan sidaan u garanayo qof u garanayo ma jiro anigiiyo raggayaga marka taas alxamdulilah rabbilcaalamiin marka taa maxaan uga jeedaa horta in cumar geelle abaalna male ballanna male ilaahayna ma garanayo isaga iyo khadra wallahi baan igu dharanaya ilaahay ma garanayaan waa ruwaayad iyo diina fuluus iyo diin madaragtay oo been abuura oo shawaadiina ma ninka madaragtay ismaaciil cumar geelle iyo khadra ma maalintii uu 1990 markuu madaxweyne uu xaday ee lagu dhawaaqay inteerada lagu dhawaaqin muxuu sameeyey gabadh samaroona oo nin mamaasan oo qabo oo booliisa oo belbele ku noolayd yaa la gooracay gabadh gadabursiya waa la wala garanaya yaa belbele lagu gooracay ninkeeduna wuxuu ahaa booliis buu ahaa oo waa mamaasan dhiiggeedii waxaa loo geeyey ismaaciil cumar geelle qadidaas waa sir aan gacanta ku haynay oo aan ognahay oo la ii sheegay oo la ii warramay dadkii joogay ee jaarka lahaa reer belbele oo dhanna way garanayaan oday beeca mushtara oo gadabursiya yaa gabadha dhalay oo ninkaa mamaasan ee booliiska u dhisay odayga ilaahay naxariistay wuu dhintay reerkiisii gabadhii markii la gooracay ee sidaa loo dilay ee ninkii la yidhaha isaga weeyaan kani kale weeyaan waa aniga maaha isaga in la qado gabad la yargeeyey waa la haynayaa bababa maba jooginba maaragtay 3 biloodba ma joogin 2 biloodba ma jooginba waa la soo sidaayey waa ninkii la lahaa gabadha isagaa gooracay oo been abuur laakiin isaguna lahaa anugu maan gooracin gabadheeda waxa gooracayna ma garanayay laakiin wuu garanayay waa wanqalka dhiigga gabadhaas inuu cumar geelle uu dhiiggaas uu gacanta ku qaatay khadrana ka dambaysay iyo ragga afrikaanka ah ee maali iyo senegal iyo cote d'ivoire iyo cameroon ka yimiday iyo 2 nin oo ciisa oo diinta maaragtay faalka ka shaqaysta oo jooga hotel Sheraton yaan ku ogaa Sheraton hotel bay wala deganayeen badna maaragtay guryaha loo kareeyay oo mishaar bay ku qaataan ilaahay marka mishaarkooga way u socotaa horta falalka maaragtay diintooda horta waa kaas ismaaciil cumar geelina waa kaa xasan madoobena wuu ogyahay zakariya wuu ogyahay waanad ogeydeen jaama waad ogeydeen gabadhiisu markay ka sheekeynaysay nabad sugidda faransiiska ay weydiisatay france ya magangelida siyaasadeed siday uga sheekaysay siday wax ugu sheegtay waad ogtiin hajaajaha gabadhuu qabayay ya intuuna tani ismaaciil cumar geelle intuuna guursan haybado gabadhuu qabay uu vietnam uu ku guursaday dee waxay tiri maaragtay odagayga 1 habeenimo yuu aabihii soo qaadayay digaag iyo neef xoolo madow yuu soo qaaday dhiiggaas yaa loogu meedhayay aqalka dhexdiisa oo anigu markaan saabka aan naxsanaa oo aan fariiray oon aamusnaa waa odagayga indhahaygan ku arkay waa jaajaa marka horta reerku waxaabay ku shaqaystaan diin iyo milladoodu taa maxaan uga leeyahay horta aniga ninka godkay geliyey islaahi gal horta waa ismaaciil cumar geelle
godka waxaa iga soo saareen ilaahay baa iga soo saaray raggii godkay geliyena xabsigaa la geliyey taabaan aniga leeyahay ummadda reer Jabuutiyow laba mid bay noqonaysaa oo Fuad nasiib buu leeyahay hadduu maanta intaas soo gaaray toban sinood baa lagu xukumayo war waxaas waa sheeko dheer oo ujeedada waxa la wataa dheh inuu meesha ku dhinto cudurka covidka yaa dilay iyo madartay kaliyaha iyo cudurkiiba sanbada u galay sheekadaa baa la wadaa hadday doonaanna way sumayn karaan laakiin kuma degdegayaan sababtoo ah dilkiisa cabsiyeer baa ka haysa waa inuu xanuustaa uu bukoodaa uu kadibna maaragtay ay beltiye ay ku dilaan beltiye marka la geeyo oo halkaa ay raaciyaan qorshuhu waa kaas waa tabti maxamed jabha labada arrimood way isku xidhan yihiin waxaa cajiiba arrinta Fuad iyo arrinta maxamed jabha nin baa labadaba ku dhex jira waa ninka cafareed waa maxamed ka dhacami maxamed ka dhacami kulama gudoomiyaha fruitkan yahay ee madartay maxamed jabha uu la shaqeynayay sida la sheegayo oo iska warhayeen ee kadibna daminka loo dhigay ee la qaaday gabood la geeyey taariikhdu way caddahay laakiin waay maxamed jabha maxay u dilayeen muxuu maxamed jabha la soo bixi waayey maxaa been abuurkaas loogu qabanayay waxa weeyaan hadduu soo baxo maxamed jabha wuxuu sheegayaa ragga dilay iyo ragga xabsiga geliyey uu number 1 ka yahay maxamed ka dhacami marka il faut protéger ka dhacami Ismaaciil Margelle waa midoo wuxuu protégenayaa ilaa maanta waa maxamed ka dhacami marka waxay go'aan ku gaareen inay maxamed jabha ay saa ku dilaan maxamed ka dhacamina ay ruwaayada ka yiraahdaan warniyow mudaharaad sameeyo kaararka iyo sawirada maarad maxamed jabha soo qaado kolba meel la tagtay waxaa kaloo cajiiba oo la yaab leh bal ilaahay baa nigu dhaariya balarka bal Fuad latino Fuad iyo maxamed jabha halka ka soo gaalka maxamed jabha saabu ku dhintay laakiin qui était l'avocat de maxamed jabha avocaatkiisu waayo waa Zakariya waa maître Zakariya ilaahay baa nigu dhaariya balarka waa maître Zakariya Fuad waayo avocaatkiisu waa maître Zakariya bal khadamtu halka iska xidhantay arka dhaandhaanin ha noqoninoo doqma ha noqoninoo gudaafad ha noqonine bal analysekayga arka iyo waxaan maaragtay nii sheegayo ee maaragtay isku kin xidhayo maxamed jabha ninkaa la dilayay ee dhimanaya ee cudur iyo wax walba ku dhimanaya silca ku dhimanaya ee la diidayo inuu soo baxo SDSta iyo inuu Cumar Geele ay diidayeen iyo khadra maxamed jabha avocaatkiisu waayo waa maître Zakariya yaa telefoonka kula hadlayay maxamed jabha oo Djibouti meel walba wararka isla socdeen maxamed ka dhacami maxaa geliyay haddana inuu madaragtay latino Fuad uu Ethiopia Addis Ababa uu kula hadla telefoonada oo leeraa latino Fuad yaa madaragtay fruitka u tagaya oo fruitka u galaya waxaa wada madaragtay baawo ina madaragtay علي عدن محوها علي عدن انا علي عدن محمد عدن يا مدرتي باو مدرتي يا اوغيي روحا سو دو قرشه وين باو انا شكل اي جيره باو ان حبسي الماشي لا كيني بين يعني انو هايستا او باو انو انت كجيرو وكل ليهي يا انيغا يعد برخد عدمها أنا ويا عداي إنه برخد عدم إنه أرنت كجرو وامد برخد عدم إنه مدرسة تسوي كدعمي أي سكو حدنايين Fuad مركي القبناي مركي الدلاي مركي وحول بلا سمعناي وعداي وامدو ماتر زكريا معاك يعني أو Fuad أفوكاك اللي وديدي بالعك إما كان وركي سوق علينا محل ليه Fuad ماتر زكريا كما هذا ديزاين اللي حكومي شفتو قالي وسكامس بس كده هل كون دونا يو قالي
lacagtuu qaadanaya wuu qaatay inaad bilaash kuma shaqeeyeen horta waa kaas anigu waxaan leeyahay Maître Zakaria arrinta wuu ku jiraa waxa uu ka og yahay in labadii nin Maxamed Jabha sida loo dilo oo riwaayadda loogu ciyaaro qayb buu kaga jiray oo kolba meel u dhoofayo جبهة كدعمي وصبح عفرتي صار فروتك صار il faut faire la démonstration manifestation سفارة جيبوتي كالايا بابا the traître اي دلين ويا waxa kaaga daran waliba markay safaaradda Djibouti marayeen naagaha yar ee soo qurxiyay dreeska iyo libiska duruucda gograda ku dambe moodka soo qaata iyo mobilada wadarkay selmadatay markay saa wax duubayaan markay saa u jiraan way qoslaayeen Maxamed Jabha ayaan qoslana uu ku jiraa dad muruganay laga arkayo in qofku markuu manifestation markuu sameeyo daacad yahay oohin iyo murugo uu yimaada laakiin dad madartay dhar qurux badan duruuc naaga wata naagaha u badnaa moogti naaga duruuc tii u dambaysa wata oo ay soo dirtay magaceedii islaantii Dubai joogtay ay sheega in maxay islaantii Dubai maartay duruucda khadra u soo diraysay arka oo wala qoslaaya jabhay maartay u manifestinayaan wana qoslaayaan ka dhacani iyo caashi dabalena halkan bay joogaan horta riwaayaddu waa taas riwaayadda reer Djibouti lagu ciyaari waa taas Maître Zakaria isaguna Paris buu imanayay halka uu conference ka sameynayay meelu ka hadlayay وريادين هبون دقيقة ميرسي هبون دقيقة واكا دروع لو صدرته عايش دابري دمر كايمانية منفستاسيون وعلى أي شيء ناقها عن فريد إيمانية منفستاسيون انت أبدا دروع لو مالت بلاش بلو جيني أو عايش دابري بيا ولا سينيس هبون دقيقة ولا سوق هذا يدبي بالعرك روايد والك كسعود وانا reer kaliyato qabiilisku jirjira oo iswala garanayo oo aabayaashood hooyadood walaaladood ay Djibouti ka shaqeynay madax ka yihiin waa afartan ni sheegaya aabayaashood waxay wasiiray hayeen ministre kaana Ismaaciil Umar Geli Xasan Guley aba waa directeur aba maartay waa officier supérieur commandant iyo colonel hortu waa kaas reerku oo nin gaajoonaya oo reerkiisu gaajoonaya oo soo baxayo meesha imanay manifestation maba jiraan inta meesha soo wala baxdo dhanba waa kuwa lacag iyo reerow lacag leeyihiin oo Djibouti wala jooga waa afarta laakiin yaa lagu ciyaaraya yaa loo ruwaydanaya waa reer Djibouti yaa loo ciyaaraya oo loo ruwaydanaya waa reer Djibouti laakiin ilaahay uu naxariistay Maxamed Jabha saaba lagu dilay barsko inuu soo baxo معناته حويان عن فرو دن يميل كسب يوغارسينيا إنه كدعمي وكذا بيه لكن وان هاي النادو وين نوعده لكن سيدي كدعمي كمو جوين كمو دين محمد جبهة قبرك ويوغدا بطاقين مركابي قبرك قليس إنك هذا تيلان حريسي يقولي بنا عيبايان أي دونايان وجروب كمالتي كدعمي بجبوتي جوين وحي سو شيغين oo imaartay mabla iyo tijoray ubuq iyo Djibouti ay soo galiyeen Maxamed Jabha ina qaatil buu hayo in Maxamed Jabha wuxuu nin Eritreano afarta Eritrea hayo Maxamed Jabha maartay dumarka iyo gabdhaha maartay afarta reer Djibouti mabla yu maartay xoogayo oo kufsanayo wuxuu ahaa maartay violeur buu ahaa markii u dambeysay nin afara oo tijoray jooga yu islaantiis maartay mabla oo maartay ku haystay nikiba carooday nikiba maartay kacay oo tii colonelki maartay Ali Xasan ay joogay maartay joora ya oo u soo sheegay halku joogo marka carada ninkaabay ka timid laakiin Maxamed Jabha waa nin xun waa violeur des femmes afar waana terroriste waana afarta Eritrea ce sont les affaires de Kadami qui racontent ça à Djibouti à Tadjoura à Obok et oui nikiba wujidisi يدمشيديسي لبابينايا تابا كانت مانتا مركز أركيسين لتنان فؤاد يوسف علي إن توصل نضاد لحكوم عيو أو هبين مدول لحكوم عيو
sidii aniga laygu xakumay maaragtay harar xabsiga harar laakiin ilaahay muxuu tusay aniga wuxuu tusay ilaahay kuwii aniga xabsigay geliyey oo la keenay oo katiinad lagu hayo yaa xabsigaygii galay anna hotel cat etoile oo raas hotel ah yaa lay dhigay anigii fuwaad axmed sawaaxili ilaah naxariistay waka ilahay xukma maxaa dhacay markaas 5 sanadood kadibna waxaan jecelahay katraban 13 dagaaladii fruitka markay ay jireen 1993 waxaan ugu tagay sandaafa madaxdii derg oo dhanba sandaafa ku jireen marka halkaa baan ugu tagay nin cafara oo in adeerkay ilaahay naxariistay marka uu dhintay yaan ugu tagay oo sandaafa maaragtay aan halkaas aan maaragtay kula soo sheekaysanayay yaan ugu tagay kolonel ayaane ninkii harar aniga igu xidhay ee xabsiga harar i geliyey kolonel ayaane wuxuu ku jiraa xabsigii sandaafa ee aad soo maaragtay ilaa iyo mooyaan 20-30 kilomitir ka xigtay sandaafa xabsigeeda ya kolonel ayaane halkaa buu ku jiray oo deerka oo dhan madaxdii oo dhan halkaa buu ku jiray marka anigu anfarigaan u yimid doon soo salaamay isaguna uu garab joogaa oo garkii baa ku baxo uu bedilmay waa 5 sanadood kadib waa ninkii harar aniga igu xidhay lahaa waa lagu dilayaa marka ninka anfariga markaan u yidhi uu tagay kolonelku tuugay niyo ninkan maad garanaysaa ها وان قرنها وان ذلك يوم كان أنا يميدي أنا دونا إنه مارتي محكمة يجوب بوحية وان حري نكى قال هذا مع عبد الله تبركالها وحاجات كحدي حرب بان كحدي أستاذ حدي يعني كما أمر بان كأهلي وزير كريمة جودها تسوي والسلاسل وإسماعيل عمر قال له عرفت بوحية السجى يمارتي يمقعيسي حسين إسماعيل راس جيسكي درنا يا بوحية سودان عبد الله تبركالي وحا لغو مصببي إنو السياد برا صادرين وان يابي نكي عفرقه هو يابي هاي وين مدوي السلام عليكم والله في عنده خيرات وكابري نكن مقرنيسا ميبا المقرن وصوبو ذا حبشي كل يعني جلبوه يقدو كذي بل تاريخ ذا بالأرك وكولونيل كدنا جلبوه يقبصدي جلبوه يقدو كذي انقرتا أتو عبد الله انقرتا عبد الله انقرتا بوليه أنا ما قرني أنا ونيل إني كان حبشيها جلبها كويس تواعيو كمان سكقادو حنو ياتي مكوري you forget me you forget me no I don't recognize you who are you I am Colonel Ayane Colonel Ayane مكوري وانا حي waxaan mooday abeesana cuntay dib baan u booday dib maxay u soo dhacay waxay u soo dhacay maalintii u dambeysay xafiiskiisa aan joogay katinad baa dhabarka laga xidhay oo katinad baan ku xidhnaa isaguna uu garab joogay wuxuu galay inuu qiro oo ogolow ina lacag lagu soo siiyay inuu maxamed saad bare ku soo diray inaad Ethiopia iyo Dardaba halkaas inaad wax ku sameeyay doonaysid aad Djibouti rabish qiro onan leey maya aniga dad diraysin dila waxa doontiin buuxiya laakiin anigu waxaan geystay ma jiro أنا ضاعت بانها وراقدها يجينا دردبي يعني من عينا وإنه عمر قال لبنا سنة وحن سيء سفير كنا نيجوجا مقدشو سفير كمقدشو مركا جوجا إثيوبيا قرال كيبا نديبي صدح مرات بان قرال كوجي إن الصعنا يو إن كسر جيدو دجال كجيبوتي لو قاضي يو صدح قرال بان قاضي مدو حن سيء سفير كجيبوتي هنفسن أو جوجا مقدشو نكي ماماسن قرال كي لبديانو ديبي إن سفير كمالك فرانسيسك يكون سلودي يانو ديبي لابو قرال كي سدحديانو ديبي وحنو ديبي إثيوبيانك سفير كإثيوبيا oo aan la joogo la sheekaysanay oo qaraar gacanta ka garido nirmar kanu dir dhabaan u socdaa waxaan maartay aan gaafnay ma jiro inuu Umar Geelaan balasanahay in halka maartay aan dalkeena aan nabad aan wax ku xalino arkay ilaa ugu dhaariyay marka Ethiopia way ogtahay inaan anigu aan daacade inaan nadiif yahay laakiin in Umar Geelaan wax loo sameeyay anigu markaas maxaan ku noolaaday maxaan ku sii raagay ووقت ما يقول لي أراضي لكن وقت قراب الخارجي له واحد عادي قلوين مارت الكونتربانديست أو جات السجارك يخمر كسوق عند جيبوتي أو بندرات سومرت أو عيسى مارت كتب لي ده يا سجارك يخمر كسوق عليه أو أورتي وطا أو قري وطا يا قلوين كمارت جمرك توب يدرنا يسكوني مدين رصاص بكفرن
waxay ka dileen ilaa 5 nin oo madaragtay in gumrugii Etoobiyaanka amxaaradii bay ka dileen kadibna sigaarkii iyo khamrigiina suuqi baa la galeen halkaa iyo biki iyo meesha dhuki baa la galeen haye janankii harar joogay markii loo sheegay ciisa madaragtay in gumrugii contributionka Etoobiyaanka halkaa ku dilay 5 nin oo amxaara oo xabashiya amar buu soo saaray jananka ciidanka wuxuu u diray dhowr dubaadood buu diray deegaankii ragga lagu dilay markaa buu yiri deegaankaas ilaa iyo alontuurkooda ninka u yar oo 15 jira ilaa iyo madaragtay 50 jir soo qabta 15 jir ilaa 50 jir waxay siin ragga soo wala qabta gacmaha garbaha ka wala xidhxidha intaad qaadiin dab intaad shidiin dabka ku dhexrida dabkaas ku dhexrida maxaa dhacay marka raggii inta la soo qabtay ilaahay waxaan jecelahay dhowr iyo 30 mooyaan ilaa 50 nin bay hayeen oo dhalinyarna ku jireen iyagoo garbaha laga xidhay yaa la qabto dabkii waa lagu dhexriday waa mangisti waqtigiisi raggii oo dabka lagu dhexriday yuu ninkii jananka telefoon ka helay in Addis Ababa waxa la siri mooyaane adigu waxa la yiri niyow arinta ka noqo telefoon buu diray ninkii ciidankii meesha joogay war ragii ma qabato ma noolin soo yakoo nool baad soo wadaa dabkii baan ku riday amarkaagii baan fuliyo dabkay ku dhex jiraan ka saar buu yiri ka saar buu yiri dabka raggii baa laga soo saaray meesha raggii in horta way dhinteen oo dabkii bay ku dhinteen aduu badhna ilaa waxaan jecelahay kutunidii maaragtay dhowr iyo 10 baa ka soo haray oo deed ilaa iyo intay gubteen maaragtay deed ilaahay baa ogay aduu raggii waa la soo qaaday intii iyagoo badhna dariiqa naftu kaga baxday iyo kuwa kaleba dhakhtarkii waxaa la keenay diradhabe iyo xaafid ciise oo dhan ba ooyintii baroorta ay ka bilaabatay baayay waan dhimanayay maxaa dhacay ciise xabashadii baa ciisihii gubtay iyagoo nool ogaaskii markaa wuu noolaa ilaa naxariistee ogaas xasan xirsi baa joogay wuu tagay wuu soo arkay wuu naxay baroor diiq baa dhacday ogaas xasan xirsi maaragtay xasan guuleed buu maaragtay u yeedhay uu yiri maaragtay madaxweynaha dalka ciise waxaad ku tahay mooyaane ciise islaamaa loo galay oo loo gubay iyagoo nool xasan guuleed iyo ismaaciil cumar geelle diradhabay ka soo degeen mangistuna wuxuu ka yimid Addis Ababa diradhabay isku yimaadeen clash baa dhacay marka madaxaa la isku dhuftay xasan guuleed baa oranaya mangistow maxaa dadkan u dishay maxaa saa ugu gashay maanad ilaahay ka cabsoonin maad bilaadan hay bababa markaa buu sheegay mangistu ka maartay waa raggan waa kontrabandiskaagii tuugiinta adigu aad soo dirteen khamriga iyo sigaarka maar ka shaqaysta maartay bondara ilaa Ethiopia waa ragga adigu aad soo dirteen lacagta kaga cunaystay Soma ragga yagi ciidanka yagi in gumruga ay contributionka 5 nin bay naga dileen maragga baad maartay waliba marka aniga igu yeeray soo igala hadlaysa waliba ya idaf adkaba lagu kala baxay mangisna Addis Ababa ku noqday xasan guuleedna Djibouti ku soo noqday taaba keentay in Etoobiyaanku way ogaayeen markaas inuu Sultan Abdalla Dabarkaale uu dambi gelin oo aniga markaas dilkii iyo dhibaatadii la ii geysan lahaa dib u dhigtay xabsigan ku jiray haram dadka mar hore ay kharijin lahaa moogta hadii in Umar Geelle iyo Ethiopia isku iyo xasan isku fiicnaan lahaayeen anigu maartay caawan lama hadlayn sidii baa maartay aan ku soo baxay Tigreegi baa qabsaday dalkii raggi xabsiga la igu keenay waniga nin sheegay kunaayana maartay xabsiga sandafaan maartay jilbaha iga dhukaday oo yiri warniyo waan ku saamaxay daaf ilaahay baa ka tusay in marka adoo jilbaha iga dhukaday inaan arko alxamdulillah rabbil caalamiin ya
ومداس حبسك مركان كجري هرب إلهي بانبري أي مارتون إلهي شركات إيو بزنس إيو إنه إلهي يفرق ولبا أنكو أواويين حبسك أنه كجري إن مراكب يالنايو وحيو دورتي إلهي رنبو يقدقي إلهي عرورتين ويسيي شركدي إيو مراكبتين إلهي ويسيي وامدو مركز دمانا دير إن عمر قيلا مارتي قاعدة مريي وامدو حبسك مركان كسو بحي أن سوق قد قلنا وليتنا يوسف بانوسو صعدا هدو لها أرنتاس ميل قلية مركان حبسك كسو بحي قصير كيبان الله هدلي وعبد الله الدبركالي وحكو الله هدلي عبد الله الدبركالي ها عبد الله الدبركالي ها منوشاي ها وروان كويني حاجات كوالله حبسك أن كجري ووح عجيبة ووح فجعة إسماعيل عمر قال له وكدونايا وكرادنا وكوايي مeel kastaan kaa doondoonnay meel kastaan ku weydiinay marka cabdalla dabarkaalow ii kaalay halkii baan u tagay kadib telefoonku qabsay ismaaciil buu la hadlay ismaaciilow cabdalla dabarkaalow wuu xidhnaa xabsiguu ku jiray bal riwaayadda la ciyaaraya arka cabdalla dabarkaalow xabsiguu ku jiray waa la xidhay etoobiyaankii baa xidhay laakiin wuu nool yahay wuu caafimaad qabaa ninkii kalena wuu fiican yahay fuwaad marka waa kaasi aan kuu dhiibay la hadal cabdalla dabarkaalow haa maadigii haa هذه آد برضو حماي ما حيكون حرن ما قرنا واحد ليه حدا واحد ليه مالتي توق باتو خاين باته هاي إما كسلات ما في عنته هاو في عنه هاي ما حنكو قبطة ما صوق على سام ما دمنا يسانوان كوميدوان كويه هاو أنا منايا بس هذا إن لسبسية قدي ورقلا قدي نكاس إن سفارة ندي أرنسا تقول كنينا يكان ندي أرنايا إن جيبوتي كالي جيبوتي بنقول هذا ناي أوكي صار وحده تقدر كيف الله يسيء إن أنا جي إن مقعيسي فؤاد أحمد صواحلي إن الإسباسية بالسوق هذا تضوات كده من مرتي وحنا كده جيب جيبوتي إزدست بيسويسي من كلنا لو الساق مقعيسي بقى بحي إلى إنه نولي هنا ودنت مقرنا يوم مركز ها لكولنيل دلا سيكوريتي وحوها إن اس ار لراس ار اس رانسيمون جنرال نكي حكومي إيش هذا نكي حكومي إن 92 بنجعلها هاي نكي حكومي إيش هذا إيه ساق لو كولونيل دو رانسيمون جنرال يا مدرتي قابلي أو أربورك يقصدوني أحمد يموين أوكي كديبوا السوق هذه ويجي مرت المقبضين مرك أفريتريس قطالي هالكابن مقبضات كعنني كديبوا القاضي بيروغيسي وجاي قرالي يشاكو يرجلي السجين كلو أبتجايا أو رياع السباحة أو أن جعل مركز كوماندوها إرجيجا أو فربها تاريخ هذه مركز أخرستين يوحي عن صوغ لي يوحي عن السعودية سنة السعودية واحد مدركتي يراهدين سلطان عبد الله الدبركالي تاريخ هذا مركز أرجني يلقن كد كجرتي وحات هاي ان جنرال سون تروب مقع سالكا ميغا صوبحي إرجيجا يبعي هنكا فرلوية نكا إساق كولونيلكا يا إيبعي أو يري هذا الكاغي تاريخ هذا مركز إيغنو سياسة هذا يلقن كاي أدودد iyo dadku sayna ku fahmayn reer Djibouti sayna ku fahmayn ya waxa tahay en general son troupe ilaahay gama dhigay maartay imaka ilaahay ka dhigo ku bedelo en general african troupe ou des troupes dulaha wayna soo socotaa meel ku qora meel gasha general son troupe Sultan Abdel Daberkali du 91 Aujourd'hui, en 2021, Sultan Abdel Daberkali, Inch'Allah, nous rendons un général avec ses troupes. Au Horenaya, Djibouti, il ne connaît pas quoi arcaille. Au Horenaya, Abtili, lieutenant Fouad Youssouf Ali. Hadou Sogaro. Hadan Sogaro. Wamid Marka. C'est où est le Marka. هذا أنا وطوح وين عن تاريخ نيجالي سيميلتود أنا سكو إغناي إسماعيل عمر قال لي وسلطان عبد الله الدبركالي حبس عهر قليل
وإلهي كسو صاري ورقو إلهي حبسك قليي سلطان عبد الله دوركاي حبسك قليي يكيو كتينات كحرن لو كاني أو يكال حرن أنا كان هوتيل فور ستار اللي دي هرب راس هوتيل فؤاد يوسف علي مركا إلهي عمري يسيع عفمات كيس هدايه وعجيلة وانا سكو يقنع أنا كيف فؤاد وانا سكو يقنع